السلام عليكم daawadayaal kusoo dhawaada wax kasto TV waxa idin la hadlayo madaxweynaha mustaqbalka Farsef muuqaalkeena maanta waxaad ku arki doontaan dadka ugu yaabka badan adduunka qaybtiisa labaad la soco muuqaalka cidiyaha ugu dhaadheer dunida laga soo bilaabo 1982 Louis Hollis oo Mareykan ah waxay korinaysay cidiyaha lagu heedaa ilaa ay ka gaaraan dhirir xad dhaaf ah markii la cabiray waqtigii ay ugu dheeraayeen 1991 marka la isku daro dhammaan tobanka cidiyo ee faraha waxay ahaayeen 220.98 cm ama 87 inch. Hollis oo ka timid Compton, California, USA ayaa hamuun u qaaday inay koriso cidiyaha lagu heedaa 1982 kadib markii ay telefishinka ka aragtay barnaamij lagu muujinayo cidiyaha ugu dheer adduunka. Hooyada dhashay 12 caruur ayaa meel dhigata dhammaan cidiyihii ka jabay. Marar dhif ah ayay xirataa kabo, laakiin marka ay samayso waa inay ahaadaano kabo afka ka furan oo ay leeyihiin cidifyo dhumucdiisu tahay ugu yaraan 7.62 cm ama 3 inch si aanay cidiyaheedu dhulka u jiidin. Hadda cidiyaheeda faraha lugaha ayaa mid walba ah dhirirkeedu 15 cm ama 6 inch. Barlabo dhammaanteen waa wada garanaynaa cidda uu yahay Michael Jackson. Haddaadan garanaynin cidda uu yahay, saaxiib TikTok-gaada ku ekaaw. Waxaa kaloo garanaynaa xarakada uu caanka ku ahaa oo la dhaho moonwalk ama dayax socod. Waxaa jira qof xarakadaas rikoor ka dhigay, waana dayax socodkii ugu dheeraa adduunka. wuxuu socday 2 saacadood 30 daqiiqo iyo 50 ilbiriqsi waxaana gaaray Michael Frank ee Jarmal u dhashay. Rikoorkaas waxaa lagu dhigay magaalada Ebbingen, Germany 30 Janaayo 2011. Michael waa macallin qoobka ciyaar xirfad leh iyo guuleystaha qoobka ciyaarka qaranka ee Jarmalka. waxa uu si joogto ah u sameeyay xarakada qoobka ciyaarka caanka ah ee moonwalk ee Michael Jackson isaga oo aan hakad gelinin asagoona qaadanin wax nasasho ama musqul ah. Dhamaadkii isku dayiga waxa uu sheegay inaanu dareemi karin cagihiisa, laakiin dareenku uu si degdeg ugu soo noqday. 3 mootada ugu dheer adduunka waa 26.29 mitir waxaana sameeyay Bharat Singh Parmar oo Hindi ah. waxaa lagu soo bandhigay oo lagu cabiray Lahota Lake Jamnagar, Gujarat, India 22 Janaayo 2014. mootada Bharat waxay ka dheereed 4 mitir markii loo eego rikoorkii hore. si loo hubiyo mootadan dhirirka badan inay awood u leedahay inay qabato waxyaabaha mootooyinka caadiga ay qaban karaan, Bharat waxa uu kaxeeyay mootada masaafo dhan 100 mitir isagoo aan cagihiisana dhulka dhigin. Number 4 baararka ugu dheer adduunka ayaa dhirirkiisu dhan yahay 20.5 cm. baararka waxaa lagu cabiray magaalada Shanghai, Shiinaha 20 Maarso 2021. baararka Eugene ayaa lagu qiyaasay 12 cm waxaana la xaqiijiyay inay leedahay baararka ugu dheer adduunka sanadka 2016. baaraheeda ayaa si joogto ah u koray tan iyo markaas. hadda waxay midii hore ka dheer tahay 8 cm. Number 5 ninka adduunka ugu qurxan Farsef Fanin iga raal noqda warqadahan isku qalday dartiina wareeroy waa u jeedin. subscribe iyo like nagu daaweeya. Number 5 badigan waxaan isku daynaa inaan ogaano ilaa inta aan neefta isku celin karno biyaha hoostooda, laakiin Budimir Sobat oo Croatia u dhashay wuxuu cadeeyay xirfadiisa inay cidi la tartami karin. markay ahayd 27 Maarso 2021 wuxuu jibiyay rikoorka ah waqtigii uu dheeraa ee Netflix ku celiyo, wuxuuna gaaray rikoor naxdin leh oo ah 24 daqiiqo 37 second iyo 36 ilbiriqsi. wuxuu dhaafay rikoorkii hore 37 ilbiriqsi, waqti dheer oo aadan neefsanayn oo laga yaabo in ka badan inta dadka badankooda ay neefta cishan karaano. guud ahaan Budimir ayaa iskugu dayay rikoorkan gudaha Croatia si uu ugu samafalo magaaladiisa kadib markii uu ku dhuftay dhulgariir xoog badan bishii December. Number 6 mid ila fahma saaxiibayaal
ninkan gabadha uu guursanayay aad ayay u shidneed, sidaas darteed wuxuu u dhigay arooskii ugu weynaa adduunka ee lagu dhigo biyaha hoostooda. waxaa ka qayb galay 303 quusayaal ah, kuwaasi oo xafladda arooska u shidayay Stranowska, Ewa Stranowska iyo Paweł Borkowski, labadaba waa Bolondes. intii lagu guda jiray munaasabadda ayaa la arkayay in cuntooyin iyo wax iyo meesha lagu dhex cunayo. shirkadda soo qaban qaabisay arooskaasina waa shirkadda lagu magacaabo Orca Group Ltd oo Poland ah iyadana. wuxuuna ka dhacay saldhigga quusitaanka Kopark ee magaalada Jorwonso ee Poland Agoosto 2011.